mahadda labaadna intii dadka Soomaaliyeed maslaxadooda ka talinaysa gaar ahaan deegaanka Puntland dadka ku hawlan inay wadankan oo yeesho maamul hirgala oo sida ay u doorteen inay yeeshaan maamul u adeega bishii August 1998 weli heegan u ah oo hadda maanta caawa halkan aynu isugu nimi inaan ku dhawaaqno maalinta uu dhici doono shirweynaha dawladda Puntland dadweynaheedu kaga soo qayb galayaan wakiilada ah inay ku ansixiyaan dastuurka Puntland oo qabyada ahaa muddo soo qabyahana lagu shaqeynayay arrintan sida ka warhaysaan waxa weeye ilaa bishii campaignka oo ka bilaabay halakan sanadkii 2008 bilow aakhirkiisii maamulka hadda aan halakan anu madaxda ka ahay ragga laga doortay baarlamaanka ugu horeeyay dabadeedna oo baarlamaanku doortay aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka ballanqaadkii aan qaadnay wuxuu ahaa oo dadka hortiisa aan ka ballanqaadnay ilaahay hortiisa aan ka ballanqaadnay wuxuu ahaa inaan dadka Soomaaliyeed oo reer Puntland aan ku soo celino gacantooda qof ahaan awoodii sharci oo ilaahay u dhaliyay oo ah inay madaxdooda iyagu ay ku doortaan gacantooda iyagoo maraya dariiqa axsaabta badan ballanqaadkaas oo kamid ah ballanqaadyo badan oo kale oo in badan oo kamid ah aan fulinay oo hadda maanta halkan aan ka tirin karayn waa socdaa ilaa sanadkii dhaweyd oo dhan geedi socodkiisa waa socdaa ilaa hadda aan ka soo gaaray inaan maanta caawa ku dhawaaqno halakan inuu shirweynihii lagu ansixin la Constituency Assembly lagu ansixin doono dastuurka dawladda Puntland si rasmi ah inuu dhaqan galo lagu ansixin doono 15 bisha soo socota iyadoo ay wakiiladaas ka kala imaanaya dadweynaha oo si cad oo aan caad ku dahanayn dadka degan dawladda Puntland degaamadeeda ay ku soo xulanayaan wakiiladooda uga qayb gali doona shirweynahaas Constituency Assembly-gaas aynu ku samaynayno sida waxa qoraya dastuurkeena oo qeexaya qodobkiisa 141 faqradda 1 ayaa qeexaysa sida haddeerba intii shirweynaha Garowe loo fadhiyay shirkii 1 iyo shirkii 2ba lagu go'aansaday dastuurka dawladda federaalka ay yeelan doonto sanadkan gudihiisa oo gacanta lagu hayo weli wax ka dhiman yihiin isaga laftigiisa lagu ansixin doono shirweyne dadka Soomaaliyeed ay isugu imaan doonaan oo kun qof ka kooban inuu ku ansixiyo dabcan inagu waa ka yaraanayna intaas inagu ku talagalayna deegaanka aynu joogno intaynu ka nahay Soomaaliya iyo waxyaalo kale oo duruufaha ah oo duruufo amni iyo duruufo dhaqaale iyo duruufo space meeshii qaadaysa arrimahaas oo dhan waxay horseed u yihiin sidii geedi socodka axsaabta badan lagu hirgelin lahaa qofka Soomaaliga ama qofka reer Puntland oo xaqiisa u heli lahaa inuu isagu madaxdiisa doorto waqti cayimanna ku doorto waqti cayimanna lagu bedelo sida ka warhaysaan cid walba og tahay dastuurka Puntland qabyadiisu isagoo laga soo bilaabo charterkii hore kii lagu bedelay dib u noqoshadiisa waa naga horeeyay anaga xukuumadayada wuxuu ahaa 2008 maamulkii anaga naga horeeyay waa bilaabay golaha wasaarada gudbiyay baarlamaanka gacanta ku hayay markii anagu aanu xafiiska qabanay markaa ka bacdi sida aan warar badan sheegnay iyadoo aan wax badan in looga noqdo ay ka banaanayd inay aanu badan ka eegno bacdama anagu aan ku ballan qaadnay inaan axsaab badan samayn doono in tartanka ay ka gali qayb doonaan markii mandate-ka iyagu dhamaado inaanu waxyaalaha ku saabsan democratization-ka dib uga noqono qodobada aan ku noqonay waa qodob la yaqaan kuwii hore ku qoraayo dastuurka oo golaha wasaarada oo baaskareeyay waa la yaqaan meelaha hadda laga hadlo ragga qaarkiis oo iyagu waaga golayaasha wasiirada kamid ah golaha wasaarada ay gudbiyeen waxa kamid ah mandate-ka dawladii January la doortay inuu noqonayo 5 sano iyaga qoray golaha wasaarada hore u gudbiyay golahan dambe oo wasaarada ah wuxuu gudbiyay wixii kale oo ka bedelay oo aan taas ayeen ku jirin
arrintaas waxaa fiican inay u caddahay dadka Soomaaliyeed oo dhan ama reer Puntland oo dhan u caddahay shaki kuma jiro geedi socodkaas socda oo lagu ansixinayo dastuurka Puntland oo ah Constituent Assembly horaa loogu ansixiyay dastuuro kale oo caan ah oo adduunka dhan laga hirgeliyay dawladaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah dastuurka dawladda haddeer adduunka ugu xoog badan oo Mareykanka 1787 bishii September 17 waxaa lagu ansixiyay Constituent Assembly sida hadda Kenya lagu ansixinayo kan dawladda federaalkana lagu ansixin doono waxaa kale oo lagu ansixiyay dastuurka Hindiya 24 January 1950 waad ogtihiin dawladahaas baxadooda intay leeg tahay iyo waxyaalaha maagaas duruufahooda markaa jiray oo sida kuween oo kale ama la mid ahaa ama iyagoo ka sahlanaayeenba inay tahay wakiilo dadka ah inay ansixin karaan dadka socda arrintaas shaki kuma jiro inay noqon doonto arrin cad oo muuqaal ah oo muraayad laga arkayo oo dadweynuhu ay xaq u yeelan doonaan inay dadka uga wakiil noqon doonaan ansixinta dastuurkooda iyaga ay ka imaan doonto taa haddii aan ka gudbo waxaa jira waxyaalo badan oo dalkan markii aanu annagu xukunka qabanay maamulka iyaga hadda jira siday ahaayeen waan ka xishoonnaa waxaan ka baqnaa Soomaalidu waxay yiraahdaan haddaad wax wanaajisid nin jooga wax hagaajiya qof tagay ceebtiis laakiin annagu mar rabnaa cidna ceebayno waxaad mara ka tihiin magaalada Garoowe oo caasimadii ah markii aan annagu la wareegnay xafiiska amniga waxaa sugayay oo hayay maleeshiya dadweynaha oo ay lacagta siiyaan magaaladu ay siiso oo ay guddi maamulaan iyadaan xukunka la wareegnay amniga magaaladaas magaalooyinka kalena hadda ka sheekayn kari maayo haddii caasimadda tahay waxaad ogtihiin inaan mushaarooyin la qaadan jirin oo mushaarooyinku muddo ay hakanaayeen waxaad ogtihiin in khilaafyo siyaasadeed ay jireen waxaad ogtihiin in ciidamadii ay kala daateen oo aan gacanta dawladda ayan ku jirin oo aan gacanta lagu hayn oo ayan urursanayn oo mushaar ayan qaadan jirin waxaad ogtihiin qaybo dalka ka mid ah inay gacanta ka baxeen oo dawlad maamullo kale gacantooda ay galeen waxaas annaga naga horreeyay waxaan inii sheegaynaa oo aanan isku faaninayn nin walibana mara ka yahay ilaahay hortiis muddadii meesha aan joognay ka hadli maayo democratization processka aanu wadno oo dadka xukunka gacantiisa lagu soo cesho laakiin waxaan ka hadlayaa maamulka wanaajintiisa wixii aan la kulannay sanadkii 2008 markii miisaaniyaddii la gudbin lahaa inaan miisaaniyad ayan jirin waa kuwa raggii baarlamaanka madaxa ka ayaa hor fadhiya 2008 miisaaniyad ma jirin miisaaniyaddii 2009 oo 2008 la gudbin lahaa annagaa gudbinay maamulka iyaga markaanu muddo gacanta ku qabannay sicir bararku 40 ku dhawaa halkii dollar 40,000 37 ma xusuusto intuu ahaa kulli 40 buu cagacageynayay maalintii aanu qabanay xakamayntii aanu dhaqaalaha xakamaynay sicirku isma bedelin muddo badan baa arrintaas wasaaradda maaliyadda iyo annaga madaxdeeda kale iska kaashanay qaabka loo fariisin lahaa haddii dhaqaaluhu liicliico hadba gar aado dhibaato badan baa timaada dhibaatooyinkaasu waxa weeye hadba haddaan shilinka iyo lacagaha ajnabiga ah oo aan wax ku soo iibsano ayaan isku sarrifin si joogto ah marna waxaa khasaaro iyo culays ku dhacaa dadka dibadda wax u dhoofiya marna wuxuu ku dhacaa dadka gudaha muxuu ahaye dibadda ka keena wax gudaha wax u soo dhoofiya waqtiga xaadirka maalmahan arrimaha u malaynayo inay xiisaynayaan dadku inaan caawa wax ka sheegno halkan wasiirka maaliyadduna shalay oo ka hadlay waxa weeye lacagtii shilin Soomaaliga ahayd iyo dollarkii ayaa kala sicirkii caadiga ahaa ku fadhiyay kala bateen dollarkii baa raqiis noqday shilinkii baa qaali noqday waxa ku wacan waad garan karaysaan lacaga badan oo macaawinooyina oo dibadaha ka yimi oo hay'ado badan oo macaawino qaybinaya koonfur yimi kaash u galiyeen wadanka kuwa kale oo inaga dhinaceena soo galay oo mashaariicda horumarineed oo laga wado Puntland oo ah kuwa maalgelinta shisheeye oo ay ka mid yihiin qolooyinka petroolka baaraya iyo kuwan kale oo hay'adaha caalamiga ah ay keeneen dhulka baa jira shilinkii baa marka dalabkiisi batay dollarkii baa suuqa wuxuu eriyoonayaa shilinkii sidaas ay u dhacdo markaasoo kale waxa ka faa'iideysta oo gacanta ku dhiga arrimaha qaarkood dad la yiraahdo speculators
oo wixii markaa yaraada urursada haddii dhinaca diiniyan loo eegana waa waxa loo yaqaano ribada waxa weeye duruuf jirta darteed qofkii dhaqaalaha uga faa'iidaysta si isaga maslaxadiisa ah oo aan maslaxada danta caamka ay ku jirin waad ogtihiin shalay markii la hadlay oo la sheegay waxa soo socda in lacag la keeni doono dalka lacagaha googo ay la bedeli doono iyo cidda haysata lacag cusub la keeni doono weli wada hadalka iyo wixii lagu heshiin lahaa dawladda federaalka iyo annaga shirkii halan garow la isugu yimid baanu hadal ka bilownay weli ma dhammaan maxaa yeelay mas-uuliyad baa waxay naga saaran tahay annagoo ah meesha ugu badan oo lacagtaas imaan karto oo suuqa ka geli karto inaanu ilaalino sicir bararka inaanu waxaanu isku ognahay aanu ku heshiinno marka ay suuqa gasho arrintaasu waa arrin cad ninkii shilin maanta gudaha ku haysta oo aan keenin suuqa oo doonaya inuu dad kale ku dhiigshiilo iyo ragga maciishada iyagu alaabta dabeecadaha dibadda ka keena oo aan la socodsiin sicirka iyagana haddii ha ogaadeen in igsha lagu hayo shilin aan maanta bangiga oolin dadkii reer baadiyaha markii laga reebo oo dadka reer magaalka oo aan bangiga xisaab ku jirin shilin soomaaliyana markii lacagtaasu timaado la bedeli maayo suuqa wixii ku jira meeshada ku dhimanaya nin walba ha ka taxadaro taas intaas waxaan uga jeedaa tafaasiil aan ka bixinayo maamulka administrationka ama dhaqaalaha sidii dawladdan u maamushay kan amniga wax badan baan ka qabannay waad ogtihiin cadowgii dhulkan dabcan inuu qabsado oo ku beermay buuraleyda dad badan magaalooyinka ku laayay weli hadda layntiisii wax ka socdaan gacanta ayaa in badan lagaga dhigay welina waa socotaa waana laga guulaystay waa la jebiyey laakiin weli khatartaasu inta soomaaliya inteeda kale wax ka jiraan waa ummaddu waa jir isku yaalla weligeed way sii jiraysaa ilaa dabargoynteedu ay meel walba ka dhammaato insha allahu soomaaliya o dhan waa laga dabargoyn doonaa cadowgaas annaguna waa ka guulaysan doonaa nidaamkan demoqratisationka oo aan wadno oo axsaabta badan oo loo socdo dad badan baan kalsooni ku qabin oo waxay leeyihiin war dadku haddii ay wax doortaan armaad meel xagalo aad ka soo laaban jirtay oo reer aad cuskan jirtay iyo xoogaya shilimaada oo aad isticmaali jirtay iyo waxaas ama aad isticmaali lahayd armay hadhow caqabad noqdaa dee qofkii aan kalsooni dadweynaha ku qabini hadeerba ha iska joogo qaylada ha yareeyo waxaa loo socdaay waxa weeye in dadweyne wax doorto axsaab ay samaysmaan xisbigii guulaysta oo markaas doorashada oo ku adkaado oo isagu helo markaas madaxdii ka soo baxdo halkaa qofkii aan kalsoonidaas qabin dadweynaha waxaan u soo jeedinayaa iyuu inay wareerin doorashada gal dheh axsaab furo dheh dartan dheh cod sug dheh haddii aadan kalsoonida qabinna hadeerba iska tag haddii aad kalsooni qabtidna haddee waad soo dhowaanaysa intaas waxaan uga jeedaa kuwa hadba meel wax ka samaynaya oo waxaan meeshaan mulaaqin ahayn oo raba inay carqaladeeyaan in dalkaanu dastuur rasmi ay yeesho ulajeedada kale oo dastuurkan hadda loo horumarinayo oo bisha 15 abriil looga dhigay sida guddoomiyuhu sheegayo way ku fiicnaan lahayd in laga soo horumariyo laakiin meelihii lagu qaban lahaa weli dhammaystirnayn baa keenay waxa weeye puntland waxay u baahan tahay si dawladnimadeeda u adkaysato in ay dastuur iyadu ay leedahay oo dhaqan galay oo dadweynihiisu ansixiyey uu jiro marka loo yimaado shirweynaha soomaaliyeed dastuurka dawladda federaalka oo aynu ka mid nahay la ansixinayo inuu keenu jiro maxaa yeelay dawladaha federaalka isugu yimaada adduunka mid walba dastuur gaara bay leedahay dawlad kastoo gaara oo federaalka ka mid ah mid guudna waa jiraa kaa guud baa la isku waafaqay shirkii dhoweyd oo garoowe inuu waafaqo keenna sababta saas loo leeyahayna horta waa inuu keenna hormaraa baaskaleeya qof kasta waxaa la gudboon marka inuu xil iska saaro inuu fahmo dastuurkeenna inuu u guntado sidii loo gudbin lahaa uga qayb qaato u soo xulo dad u qalma inay kaalintaas geli karaan looma baahna inay soo galaan oo loo soo xulo dagaal ooge mid balwa xun leh mid dembiye dalka ka galay mid hadeer xiriiro la leh meelo daban oo majaxaabinaysa puntland oo doonaysa in la fagto oo hadba maalin lugna la baxo meelo la shaqaynaysa cid ka socota looma baahna waxaa loo baahan yahay cid dhaartii loo maray go-aankii lagu gaaray sanadkii 1998 puntland aasaaskeedii inay noqoto dawlad dadka degani uu leeyahay qaybteeda ku yeelata xukunka qaybteeda ku yeelata khayraadka dalka qaybteeda ku yeelata talada dalka qayb kalena la wadaagta dawladda federaalka sida haddaba aan nahay sidaas qofkii ku gowracan waxaa la gudboon
inuu daafaco in shirkaasu hirgalo in dad fiican ay uga soo qayb galaan awooddiisa isugu geeyo in qofka maslaya oo uga qayb galaya sida hadhowba uu kan maslayo xsaabta uu uga qayb galaya uu noqonayo qof xula inuu kanuna uu noqdo qof xula oo ku gowracan mabda'a dadkeenu qaatay mid ka soo horjeeda oo wax kale u adeegaya ama raba inuu muxuu ahaayay majaxaabiyo ama kuwa doonaya dalkan inay dumiyaan ama argagixisaha u adeegeen ama ha ahaadeen taariikh xun oo madow oo ammaan xumo ama xiriiraha lahaadeen inta kale oo dhibaatooyinka dalka ka wada sida burcadbadeed oo kale lug meel un kaga leh ama lagu tuunsan yahay ama xag diineed ah looma ogola inuu soo galo shirkaas mas'uuliyadaasna waxa iska leh dadweynaha loo anagu oran mayno hebel qora oran mayno haddii intaas aan ka gudbo waxaa jira laba arrimood oo kale oo aan jeclahay inaan taabto mid waxa weeye dowladaha federaalka ah oo laga filayo Soomaaliya inay ka hirgalaan waxa weeye maamul wanaagga looga jeedaa waxaa la diidayaa in sidii hore u dhici jiray hal magaalo dad badan baa waxay u qaataan inaan xamar anigu aan ka soo horjeedo inta la hadlayo xamar warano xamar la hadli maayay haday xataa garoowe noqoto caasimaddu sidaa laftigeeda aan oran lahaa waxa weeye meel kaliya oo baasaboorka laga soo qaato meel kaliya oo dhiisiga laga soo bedelo meel kaliya oo iskuulka loo aado meel kaliya qofkii jiran dhiig lagaga qaado meel kaliya talaalka loo aado Soomaaliya uma baahna Soomaaliya waxa baabiiyay waxa weeye hal magaalo oo wax walba la isugu geeyay oo magaaladii markay dhacday Soomaaliya inteeda burburtay waxaan inii sheegaya taariikh ahaan ilaa intii burburku dhacay inaan hal ilmaa laga talaalin Puntland dadka waaweyn baa garan karaya hal talaala weligeed lagama fulin iskuul wax badan baan shirar ka sheegay aniga ka mid ahaa galaaska lixaad baan xamar u aad maantana mastered baa laga sameeyaa intaasoo jaamacad baa ka furan birina PhD baa lagu qaadan doonaa dadka soo koraya oo dhalinta oo yaryar dhulkooda ha nasiibsadeen yaan dhaxasoo London laga hadlayo waxaan ku yiri xamar hal la dhiso ilaahay dadkeedana ugu soo cesho nabadna ha laga helo laakiin Boosaaso iyo Garoowe iyo Gaalkacyo iyo Hargeysa iyo magaalo guuraysa ma jirto wadanka waa la miisaamaya miisaan dhaqaale miisaan kala degad hadda waad ogtihiin waxa dhacay waxaan loo yiraahdo democratic shift muddo dadku xaggu u soo guuray muddo 200 sano koonfur baa loo soo guuray waxaaba dhici karta in 200 sano tan loo soo guuro ayaa dhici karta waxay ku xiran tahay wixii dadka markaas soo jiita hadeerba riiga halka daroor laga taagay inta qof ilaa London ilaa Djibouti aan soo maray qof kasto af Soomaali ku hadla wuxuu yiraahdaa waxa waa gaarayaan dadkoo dhan baa tiriye makaa dhaba waxaan yiri waa naga dhab hayelay Arabiyan ba u shaqo tagnaayo ka soo helaa shaqo oo dadkeenu khayraadkiisa wax ka gaareen maxaa wax Soomaali ka soo baxay u gaari waayay way gaarayaan insha Allah ta'ala waana la heli doonaa waan loo guuleysan doonaa arrintaas marka dadkeenu inay fahmaan baa looga baahan yahay asaasna waxa uu ah waa inaad xeer leedahay xeer qeexaya dawladnimadaada maamulkaaga jihadaada lagugu xurmeeyo lagugu soo hagaago aan lagu soo dhaafi karin xijaab ku ah xeerkaasuna waa kan caawa halkan laga dhawaaqay in lagu ansixin doono shirweynaha ama constituency assembly oo lagu qaban doono magaalada Garoowe 15 April ee bisha soo socota insha Allah ta'ala intaas misna waxaan raacinayaa oo kale oo yar waxa weeye Soomaaliya wali waa kala maqan tahay dhul badan al-shabaab baa haysta xoogag ajnabiga oo dawladaha Afrika ay ku soo deeqeen ayaa gacanta ku haya magaalada xamar amnigeeda iyo ciidan Soomaaliyeed oo iyana gacan siiya baa jooga dawladaha dariska ah oo iyagu dhibaatada Soomaaliya iyo laftooda ay saameysayna gacan bay ka geysteen inay iyaguna ay ka xoreeyaan magaalooyinka muhiimka ah sida Beledweyne oo kale iyo Baydhabo ay ka xoreeyaan iyagoo ay gacan siinayaan dad Soomaaliyeed oo deegaanka iyo cuntubiyo dawladda ku meel gaarka iyagana kamid ah sidoo kale gedo sidoo kale gobolka Jubbada Hoose oo isagana lagu soo socdo waxaan ka warhaynaa in nimankii halkaas gacanta shisheeye ay maamuleysay ajnabiga badani ku jiray in kaar qabayaasha ahaa dhiigii cabyada ahaa wadankan hordo iyo haris u diiday baad maqlayseen odayaashii ka hadlaaya Beledweyne iyo Baydhabo 3 sano iyo 12 bilood baan oday ka dhageystay baan isticmaar ku jiray adduunka aan soo amray ayuu yiri inay dadkaas hadii laga xoreeyo ay dib loogu noqon doonin waxa maanta iyaga waxay rabaan meel ay u cararaan meelaha ay dabacsan yihiin hadda kulli way dhici kartaa in dalkeenu ka mid yahay
saa darteed in loo feegignaado oo la ogaado baa dhici kadha waxna waa la sheegayay annaga dawlad ahaan iyo ciidankayaga amniguba kollay ummadda ballantaan u qaadnay waa fulinaynaa waana ilaalinaynaa arrimahaas Soomaaliya laga doonayo in ay ka dhashaan markaa dawladihii kale haddii ay ka kacaan nimankaasu meesha way dhalan doonaan laakiin sida hadda socota oo fawdada ah oo hadba laba nin intay computer fariisato ama email ay qaxooti wax ka qaataan oo dibadahaasa ay isaga dhawaaqaan annagu maamul goboleed baanuna ama intay tuulo tagaan dhowr gabdhaa iyo caruuro iyo haween intay buuqiyaan ummadda kale inta kale ku diraan ay yiraahdaan maamul goboleed baanuna oo wax gacanta ay ku hayaan iyo cid kalsooni siisay midna ayin jirin waxaas ma shaqaynayaan maamul goboleed wuxuu ku dhismi karaa sidii halkan Garowe ka dhismay in dadkii dalka u dhashay ay gacan siiyeen iyagoo raalli ka ah ay cid doorteen nidaamna doorteen dastuurna ay gudubsadeen haddana diyaar u yihiin mid kale gudubsadaan shuruudahaas laga rabo yaa ansixinaya sida la isla ogyahay oo charterkii 2004 Nairobi laga dhawaaqay wuxuu ahaa 2 gobol iyo in ka badan 18 gobol maxamed siyaad ka tagay maxaa yeelay goboladu fawdad baa gashay meelaha hal gobol ahayd baa 20 gobol loo qaybshay ama 10 gobol marka wixii ugu dambeeyay oo nidaamsanaa baa la raacayaa wixii ka dambeeyana nidaamkiisu raaci doona qolada iyadu markaa gudaheeda ka tarantay oo gobolka ka yeelatay waa goonideeda sida inaga oo kale laakiin Soomaali markay xisaabtamayso waxay ku xisaabtamaysaa wixii ugu dambeeyay oo nidaamsanaa baa lagu xisaabtamaya inta wixii ah oo iyagu is ogolaan cid isku khasbin ama laba wiil oo computer fariistay inta internetka galiyaan ay yiraahdaan annaga maamul goboleed ku dhawaaqnay ama nin oday ah oo laga soo laystay oo aniga iga sii weyn oo anigu waaba iska roonahayo ilaa intii aan shaqaynayay wax eeda cidna kama gelin eeda galay oo loo haysto mid ammaan iyo mid kaleba iyo mid siyaasad xumo iyo lugooyo geystay kuwaas meel uma leh Soomaaliya waxay u baahan tahay wax la yiraahdo generation change dad cusub oo soo gala saaxadda siyaasadda axsaabteena ku imaanayaan xulkaas ay ku soo baxayaan rag iyo dumarba ummadda waa cusub inuu u beriyo oo intaas oo bay soo rareed geedi ahayd 21 sano ciidan maamulayay oo nima iyagu gacanta soo qabtaan ma nin kale soo bixin 22 kale oo burbura waxaas oo in laga baxo 42 amalaya intii la oran jiray tiiha qolooyinka qaarkood lagu aafeeyay waynu dhamaysan 2 sano in badhaafnayba marka nasriga iyo baa bilaami doona intii wanaagsaneed baa dib u soo bixi doonta annaga iyagan waaweynna marka waxaanu ka tagi doonaa dhaxal dad wanaagsan inayna bedelaan oo aanu gacanta u gelino meesha annagu aan maamulno waxaan rajaynaynaa in meelaha kale oo Soomaaliyana ay saa yeelaan oo aan inoo isaga dhawaaqin meel usan xukuuman hal degma waxa dhici kara in 10 maamul goboleed iyo 10 madaxweyne waxaan u maleynayaa annaga la ku xumaynayaa beriban waxaan maqli jiray nin reer Hargeysa qolooyinka reer Hargeysa hadallada waa helaan markii Puntland la aasaasay xogaana baqdin baa iska jidhayo meelahan hadeerba qaarkood ay magaalooyinka ka haystaan ayay ka baqaayeen baa nin wuxuu yiraahday laanlaankan hadda la sheegayo Soomaaliland baa rabaa in lagu xumeeyo hadda maamul goboleedyada waxaan u maleynayaa Puntland baa loola jeedjeedaayo waxa la rabaa in magac laga xumeeyo laakiin wardaad Puntland oo kale noqotid annaga ku soo dhaweynaa ku casumayna laakiin hadba hal tuulo 10 madaxweynayaan loo yeeray taasaan ka dardaarmaynaa اعترافك maamul damo samaysma oo dawladeed oo federal ka mid noqonaya dawladda TFG ga hadda joogta kaliya ma madax banaana nidaam baa jira lagu heshiiyay road map baa jira waxa jira principalka Garowe 1 iyo Garowe 2 wali qabyaha in kala sii dhiman stakeholders waxa loo yaqaano tirada waa la wadaagaa waa in loo dhamaada oo la isla gartaa oo markii maamul goboleedyada soo dhameystirna miiska la keenaa la isugu yimaada laga wada hadlaa la aqbalaa siday ku timi inuu genuine yahay in kale iyo inuu iska magacaabid yahay haddii hadba nin intuu warqad iska qoro mid jira intuu u yimaado yiraahdo warqadaani hor oo afar oday intuu gacanta soo qabsado yiraahdo iyaga ka wakiilaha deegaankii hadda taas ma shaqeynayso hadda maalmaha waad maqlaysaa inay shaqeyn taas ma shaqeynayso tan labaad waxa weeye madaxweynaha TFG ga wuxuu ku dhawaaqay maalin dhaweyd dooraad miyay ahayd waxaan u maleynayaa inay ahayd 8 Maars wuxuu ku dhawaaqay inuu guddi qaban doono heshiisiya wada hadal la fura dawladda Soomaaliland waa arin la soo dhaweyn karo Soomaaliland hadal la furo wax la doonayo hayeelay way fogaatay cid kastaba sabab u noqoto laakiin waxa jira cid bay wax ka dhaxayaan Soomaaliya oo dhan wax waa kala dhaxayaan laakiin cid bay wax kala dhaxayaan 99% waa cid ay deegaankeedii qaar haysato dadkeedii dagaal la gashay oo ay dagaal la hor fadhido sida kalshaale kuwii ka dhacay dagaalkii
ama buuhoodle ciidamada haddeer meeshii deegaanada biyaha ay hor fadhiyaan haysashada laascaano iyo colaadda kale oo mar kasta laga hadlo oo nin walba khiyaarkiisa waxaan ahayn ragno inay ku qasbaan taasi horey u shaqayn weyday dowladii xoogga waaweyn isticmaalkii ka shaqayn weyday soomaalina laftigeedu isma isticmaalsan karno haddaan annagu ka warwareegayno inaan soomaali dhiiggeeda ay daataan oo aanu mar kasta ku dhawaaqayno nabad yaan loo qaadan taas inay tahay tabalwaa ama caalwaa yaan cid kale ka faa'iidaysan qadiyadaas oo ayan isdihin dadkaan sii kala jarjaro oo wax ka doondoon wax kasta oo Soomaaliland lala gelaayo haddaan Puntland ku jirin oo ayan waxa jira oo magaalooyinka ay haysato iyo colaadda meesha ka taagan aan laga hadlin iyo magaalooyinka haysta inay ka baxdo waa wax kama jiraan waxa la heshiinaya nimaan balcad gaari karin la heshiinaya waa xamar baan soo dhaafsisnay haddii aan Puntland markaa ku jirin wixii ka soconaya Soomaaliya oo Puntland ku jirin waxba kama jiraan xaqiiqda inii sheegay waa inta waxa weeye waxaanu ka nahay stakeholder koowaad waxaan ka nahay meesha Puntland Soomaaliya laga asaasayo annaga miisaankii hadda maanta ah insha Allah intii kalena miisaankooda waa la imaan doonaan tartiib ma ahin inaanu iyaga yasayno ama wax u dhimayno laakiin maanta waa in la ogolaadaa waxa jira oo maanta hormuudka in annaga nahay cid kasta oo wanaag lagu soo dabaali karo ma laga hadal la geli karana waa wax wanaagsan adduunka nabad baa wax lagu wada dhameeyaa laguna sameeyaa nin ma muquunin karo nin walba xaq wuxuu leeyahay sida dastuurka charterka oo qoraayo laba gobol oo israacay oo dadkooda isla ogolaaday qof la muquunin karaa ma jiro sidii halkan Puntland looga sameeyay ayaa taariikh ah waxaan rajaynayaa waxyaalaha jira oo dhan dadkeenu inuu ku baraarugsan yahay waxa dhawaan bilaamaya barnaamijkii wacyigelinta oo dastuurka meesha loo wado inta aanu caawa sheegayo kaliya maaha ay ka hadlaan guddiga doorashooyinku oo gobolada kala aadi doona arrimaha bulshada inteeda kale xukuumadda warbaahinteeda wasaaraddeeda warbaahinta dabcan warbaahinta la isticmaalaya waa meediyaas baa lagu kala ciilbeelaa iyada un baa la wadayaa inkastoo mararka qaarkood ay dhacdo maaragtay iyada laftigeeda in laysu soo maro ragga qaarkiis oo sidai maalin dhaweyd idaacad weliba magaca qur-aanka ku marmarsoonaysay been ay ka samaysay oo intay la xiriirtay argagixisada ciidan ayan layn ay tiri waa laayay inta iyagu guuldarradoodii qariyaan suuqa geliyey oo dacaayad u sameeyey waxyaalaha maanta nasiib darrada ina ku waha waxaa ka mid ah diintii baa laysu soo galay tuug baa doonta dambe inay isticmaasho ummadda Soomaaliyeed waxaa la ogaaday inay diin jeceshahay inay muslim tahay muslimka nin laga xigaa ma jiro ama haysa sunto ama yuusa suntin ama dhiig caab ha ahaado ama yuu cabin muslim annaga naga muslimsani maba jiro Soomaaliya aniga waxaan aaminsanahay inaan ugu muslimsanahay cibaadada Ilaahay nin walba intuu ka gaari karo ka gaaraya laakiin nin walba niyadiisa Ilaahay u qabanaya waxaan go'aansanay aniga iyo inta aan madaxda u ahayba inaan wixii aan qaban karo oo muslimnimo iyo Soomaalinimo iyo ummadda Puntland na dooratay wixii aan u qaban karo inaan u qabanno ayaan go'aansanay sidaas aan ku soconaynaa idinkana waxaan ka rajaynayaa dadweynihiina inaad arintaas gacan ka geysataan dalkiina u joogsataan aadna qabsataan wixii aad qabsan kartaan sida 1998 u qabsataan maanta maalinteedii baa la joogaa waxaan rajaynayaa Ilaahay idankiis guul waxaana inay rajaynayaa qulubteena Ilaahay meel wada jeediyo waxaana inay rajaynayaa cadowga inuu ina ka qabto waxaana inoo rajaynayaa Ilaahay idankiisa oo Ilaahay ka baryayna inuu raxmad degdeg inoo keeno inuu abaaraha iyo ina ka saaro inuu ummadda Soomaaliyeedna wada heshiisiyo cadowgana inuu ka wada qabto qulubteena meel isugu nimaadno inagoo mida iyo Soomaaliyo mida inagoo nool inaynu mardama aragno iyo calankeena iyo bambanaya oo ka beer bambanaya kii Soomaaliyeed iyo kii Puntland iyo kuwa maamulada kale oo imaan doona Soomaaliya ay wada timi insha Allah ta'ala saasayna aan doona wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh